doorashooyinka ka dhacay dalka Mareykanka Minneapolis cid ilaa hadda ku guuleystay ma jirto sababta waa falanqeyn doona laakiinse magaalada New York waxa ka dhacay dhulgariir siyaasadeed waxa ku guuleystay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Zohran Mamdani waxa uu ku soo baxay cod aqlabiyad ah siyaasiyiinta waaweyn ee Mareykanka uu ka mid yahay Donald Trump iyo dhammaan Republicanska qayb ka mid ah xisbiga dimuqraadiga uu Zohran Mamdani u tartamayo waa ay ka soo horjeedeen ninkan in uu ku soo baxo maayarka haddaba Zohran Mamdani waxa watay dhammaan shacabka ku nool New York oo kala duwan Yahuudi ha ahaado Islaam ha ahaado Asian ha ahaado ama Latino ha ahaado waxa uu ku soo baxay cod aqlabiyad ah Zohran Mamdani hadal jeedinta uu ka jeediyay guushiisa حاد أيكون قاجنيسا وحير عندك يسنبل. I am Muslim. I am a democratic socialist. وحقول لي وحانها إسلام وحانها هاي immigrant أمسو بلوتي وحانا أمسنا هاي نظام كحالتي وداقة وحكاقا سيدرا وحريال القلين وآن كبحنايو مجرتو وانا كفر أحسن هاي Mamdani runtii in uu soo bixin waxa lagu bixiyay malaayiin dollar ilaa $100 milyan oo dollar ayaa lagu bixiyay in uu maayarka New York uu soo noqonin aan u soo laabano dhanka Minneapolis sababta wili loo soo kala saari laayahay cidda saxda ah ee ku soo baxday ayaa ah in musharax helay 51% codbixiyaasha ah ma jiro haddaba waxaa la fiirin doonaa yaa Joyce-ka koowaad ee ka dhigteen iyo Joyce-ka labaad ee ka dhigteen dadka codeynaya haddii Omar Faatax dadkii u codeeyay number 2 ee ka dhigteen ninka la yiraahdo Jacob Frey waxa uu noqon doonaa Jacob Frey in uu sii wato xilkiisa maayarka haddii dadka u codeeyay Jacob Freyna number 2 ee ka dhigteen Omar Faatax Janiska ah in uu maayarka Minneapolis uu noqdo aad ay u badan tahay waynu arki doonaa aad ayaan ula sii socon doonaa Minneapolis oo aan weli loo dabaaldegi karin cidda ku guuleysatay last update ka siyaasadda dhaqaalaha dunida la soo thank you